waxaa fadwooday maanta nin sheekh sheegta oo garow jooga waxa uu yiri khawaarijta aan la dagaalamayna calmiskaad ee ajaanibta ah ee guryahoodii ka soo duulay ee gurigayga nagu soo weeraray ee bisha rabadaan la dagaalamaya ee dhiigayaga banaystay ee maalkayaga banaystay ee maxaastayada banaystay ee dhulkayaga banaystay ee duulimaadka oo bisha rabadaan dhiigayaga daadinaya wuxuu yiri gaala ma ah haddaad dishaana dambiilayaal baati halka u fiirso wuxuu yiri gaala ma ah haddaad dishaana dambiilayaal baati oo haddaana dilin maxaan sameeyaa waa gacmaha taago labada gacmood taago ninka uu leeyahay haddaad dishaan dambiilaati waa ninka raggayga laayay dadkayga laynaya ciidankayga laynaya waa ninka markii ugu dambeysay maalintii ugu dambeysay maydka gaagaale iyo cadayooma iyo ninka la yiraahdo iyo tooreeye iyo rag leh saraakiisha saaxiibada ah meesha daadshay wuxuu yiri gaala ma aho maalkooduna waa idinka xaaraan dumarkoodu waa idinka xaaraan ma dili hadday dhaawacooda haddaa u tagsidna ma taaban kadib oo ma dhamaystiri kadib ninka uu leeyahay ma dhamaystiri kadib waa nin qarax ku xiran yahay oo aan la qaban karin biyo haddaad dishid oo dhamaystidid dambiilaad يا شيخ محمود والعلماء ما نقول عياريسان معناها ما نقول عياريسان إذن كوح الذين وح الله حرمي هبين يمالين علماء وهابية ذا علماء ما أنت لو يقان علماء مال والبا مساجد وحكت هذا وح إلهي حاران تنمي قفكي حلاشة قلب نقنية ورقف ليق مسلم حلاشة oo xoolihiisii xalaashaday oo gurigiisii xalaashaday oo dumarkiisii xalaashaday ma muslim baa culimo ilaahay maxaa qaldan see u jiraan ma baashun la jiifshaana bannaan miya bismillaah salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh roodin salaamaya kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay laygna inoo saara janalka saliga nabigana suubanaheena sallallahu calayhi wasallam ha hilmaaminina waqsara hadda idintahay soo tukada rabadaan mubaarak waayahay waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo social media oo dhan waxa isqabsaday Captain Ayub iyo waxa isqabsaday Sheikh Maxamuud waxaad ku xusuusataan maalin dhaweyd wuxuu fadwooday waa sheekh caalima oo culimada Puntland kamid ah wuxuu fadwooday maalin dhaweyd khawaarijta marka lala dagaalamayo in rabadaanka maalmaha ka dhinaay in la afuri karo oo loo afuro si loo soo afjaro isla khudbadii jimcahan oo maanta ahaydna wuxuu yiri dhiigoodu idinka xaaraan bimacnaa haddii aad qabataan lama bililqaysan karo macnaha lama qaniimaysan karo xaasaskooda lama qaniimaysan karo lama dili karo arrin noocaas Captain Ayubna hada nin diin yaqaana ma aha laakiin khawaarijta iyo nooca ay yihiin iyo waxan waa nin garanaya anigu hal baan garan waayay culimada waxaan garan waayay qofka dhiigga muslimka xalaalsaday ma muslim baa su'aasha kaliya oo aan rabaa bal sheekha iyo culimada la midka ah inaan su'aalo waxay tahay sheekhow ma cadda oo diinta islaamka kuma cadda qofka xalaalsada wax ilaahay xaaraantinimeeyey in diinta uu kaga baxayo gaal noqonayo ilaa khawaarijtii sabankii nabiga calayhi salaatu wasalaam joogtay oo taabiciyiinta ahaa hadda nin taabiciyihi inuu wax badan garanayo oo diin badan garanayo waa la garanayaa laakiin khawaarijtan maanta joogta oo xalaalsatay dhiigga dadka muslimka ah ee reer Puntland xalaalsaday xoolahooda
xalaalsaday hantidooda maal iyo naf iyo dhulkoodaba xalaalsaday oo ilaahayba ka xarimay ilaahaybaa ka xarimay naf qof mu'mina ninka xalaalsaday oo suuqa boosaaso dhac madax ka tooganayay oo haddeer dhallinyaradii madaxa ka tooganaya askarta hadduu helana kulligoodooda birayn lahaa ninka dhiiggaa xalaalsaday isagu magaal maaha ma muslim baa hadalkaa waxaan uga jeedaa in badan baan waxaan ka maqli jiray culimada wahaabiyada iyaga oo ku celcelinaya oo mar walba leh hadda hadalkayga u fiirsada bal daawada oo maqaaladooda dhegaysta iyagoo mar walba ku gaalaysiinaya dadka oo leh qofkii wax ilaahay xalaaleeyey xaaraantinimeeyaa fahuwa kaafir waa gaal war ninkan khawaarijta ahi sheekh maxamuudow iyo culimada la midka ahow iyo dadka facebooka kaga raacsan iyo baraha bulshada oo sheekha u doodayow bal su'aasha kaliya ka jawaaba war nimankan dhiigga muslimka xalaalsaday iyagu muslim baa seenin dhiiggii muslimka iyo xoolihii muslimka ilaa eg waayahay dadka in la dhaco oo ummadda la laayo maxalaal baa bal masaladaas sheekha la weydiiyo anigu tan kabtan ayuub iyo kan xagga idhig laakiin hal su'aal war qof dhiigga islaamka xalaalsaday xoolaha islaamka xalaalsaday dhulka islaamka xalaalsaday dumarkii nimanka muslimiinta ay qabeen xalaalsaday xaggee muslimku yahay bal meesha uu muslim ku noqday ilaa macalkii khawaarij taabiciyiin ah oo diinta yaqaanay cabdullaahi bin cabbaas nin ag fadhiyey daliilha ka dhigane khawaarijtan ka yimi afarta baynijaho isaga yimi oo afrikaanka iyo laadiinka ah caloosho shaqaysayaasha ah oo deegaankii dadka kusoo duulay yaan la dilin halaqa qabto oo hala daayo meesha masalada waxbaa qaldan war waxbaa qaldan meesha waxbaa qaldan kabtan ayuub hadalkiisa weydiin sii daynaya iyo isagu waxa uu ka hadlayo anigu taan ka hadlaya waa mid kale war hadalkaygaas aan ku celcelinaya u fiirso qofku hadduu culimada wahaabiyadu habeen iyo maalin waxay ku celceliyaan oo masaajida la taagan yihiin qofkii wax ilaahay xalaaleeyey ilaahay wuxuu xaaraan ka dhigay oo ka xarimay qofkii xalaaleeya oo dhaha waa xalaal fahuwa kaafir bay dhahaan waa gaal war qof dhiigga muslimka xalaalaystay war ninka haweenka muslimka xalaalaystay war nin maalka muslimka xalaalaystay war nin dhulka dadka muslimka xalaalaystay ma muslim baa miyuusan kaasi gaal noqonayn hadduu kaasi gaal noqonaya yaa gaal noqonaya inta nebiga diidan calayhi salaatu wasalaam iyo inta ilaahay diidan baa gaalaha keliya masaasaa macnaha bahasha culimadan sheekadoodu tahay la jiifshaano bannaan war ilaahay ka baqa bahasha marna dhinacaan ha noogu dhiginina marna dhinacaan ha noogu dhiginina dadka hiiraaca ah oo iska hiiraacaya sheekh baa la caayay waa sax sheekh in la caayo munaasib maaha laakiin sheekhu su'aala in la weydiiyo weeye waa in su'aala la weydiiyo sheekhu sidii daniyoo kale ha isa soo dhiibaan waa cafinaynaa ha isa soo dhiibaan oo gacanta ha soo galaan waa baab laakiin nimanka yaan la dilin anugu arrintaa nin arsila oo kula dagaalamaya oo madaxa xabad kaaga jiidaya oo xalaalsaday dhiiggaaga ha la cafiyo anugu diinna ma aqaani oo in yaroo meel kaga kaca baan ka bartay laakiin 100% waxa dhagahayga ka batay oo aanaadu garanaya wax ilaahay ka xarimay qofkii xalaalaysta oo xalaal ka dhigta waa lagu gaaloobaya habeen iyo maalin bay culimadu ku soo celceliyaan dembi ilaahay laga galo oo shirkiga iyo dilka ka darani ma jiro arshur raxmaan wuxuu la gilgishaa qof mu'mina dilkii marka ma dadkan reer Puntland oo la laynayo baan muslimiin ahayn maxaa qaldan xaggee wax ka jiraan waraan waa yaabay aad baan u yaabanahay waxaan la yaabanahay
culimmadii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed kulli baa la kala socdaa. bal Kabtan Ayuub baynu daawan doonaa iyo sheekhii laftigiisii oo hadlaya iyo jawaabaha uu ka bixinayo iyo bal arrintaas aynu daawanaynaa ila daawada bal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا بلشة الصومالية ملك استيجوكتو. هنربع عاوين أكاد الله رقم. وأرجع سيد خوارج تاب سابسم. وحنا أركي مظاهرات فيسبوك كسعودة. وحنا مظاهرات يا خوارج تيجي دشودي. خوارج تيجي دشودي. وكو جودها كتيرة إسقارية. وحافظ وضي ما أنت. نشيخ شيكته وقرأوا شوه. وحاول خوارج تا أنا ضد عالمين على المسكاب. أجانبta ah ee guryahoodii ka soo duulay ee gurigayga nagu soo weeraray ee bisha rabadaan la dagaalamaya ee dhiigayaga banaystay ee maalkayaga banaystay ee maxaastayada banaystay ee dhulkayaga banaystay ee duulimaadka oo bisha rabadaan dhiigayaga daadinaya wuxuu yiri gaala ma haddaad dishaan dambiilayaal baati halka office wuxuu yiri gaala ma haddaad dishaan dambiilayaal baati وهدانا دي المحاصنية وأقعمها تاجو لبضع قعمه تاجو نينكو ويلي هاي هداد الشان دمبيلاتي وانك رجع يقلاي تتك يقلاينيا عيدك يقلاينيا وانك مركي يقول دمبيسي ما أنتي يقول دمبيسي ميت كجاجة إيو عضيو ما إيو نيك اللي يراهدو إيو تورية إيو رجلي سلاكيش صاحي بضيع ماشي دات شوي وحي قال ما هو مال كودون وايد كحاران دمر كودون وايد كحاران مدلي هدي داو عود عدا أسكتنا ما تهابن كدي وما ما يستري كدي نك ولاية ما يستري كدي وأنا قرح كحرية هاي وأنا لقبان كرين بيهداد الشد ولا ما يستري دنبيلات نك الشيخ الشيخنا يهرت أنت هذا كهربين هذا الكيس واكنه إلى اللي جيست بلعبة تسعى على الإسلام والوحيد ما نعرف ضاقاس إنه جاره إلهي تعصر سبحانه وتعالى مرة بعلماء ضاقي أجرا لغفر أيه شريعة إلهي إلى إلهيات قف قدام السعيد إلهي إلهي ووضع إلهي حدي سر غفر أو النبي فرع عن الله إيمان وإذا الله إذن عن طهر نصر إلهي هلمي الله المستعان مرة إلهي تعصر لأنه بيد الله رابنا وحان حوالينا ضاق أجرا dadka lala dagaalamaya wargaalo ma munaafiqiin ma waa dad muslimiin ah waa walaalaheen waxa dibay cidii marka iyaga ka tirsan oo la qabto isagoo la doon in la dilo ma xaasaskooda sida gaalada xaaskooda loo qalinaysto far lama saari karo dad islaamiga carruurtooda waxa didi karo way maalmo ka hor maalmihii soo qaadkani bilaabanayay ninka sheekha sheeganaya maalin mahaas wajigan kaluu lahaa wuxuu noogu fadwooday annaga ciidanka ah xataa soonka in leedin ka cafinayay soonka xataa waajib idinku ah jihaad baa ku jirtaan waa afrika dhaambuna laha waa tan ayaduna ila dhageyso waynu ognahay reer Puntland ee dagaal bay ku jiraan ramadaanna waa soo socotaa soonku waa cibaado ilaahay lagu caabudayo dagaalka lagula jiro daacish wax la midana isaguna waa cibaado labada cibaado isdiidi mayaan ninna kuma cudurdaaran karo dadaalkii iyo dagaalkan ku jiray soon baa soo galayo waa nasanaya ama gurigan ku soomaya cid allaale cidii dagaalka ku jira cibaaday ku jiraan nabigana waxa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ayaanti fathu makkah asxaabta inuu ku yiri radiyallahu ta'ala anhum umira an-nas bil fidri hadiiska waxa warinaya waa sunan abu daawud ayuu ku yaala iyo musnad ahmad labadaba روايات كل فربضنا حديث كواليه أمر الناس بالفدر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم بروك لمركي لجلي مقالة مكة اللي انتقال إنه دعاء لقبقي نبي وحي عليه الصلاة والسلام وحو فريدتك إنه أفران عدوين أياد وحوغي سنة سامي تذكر دقالها كجرة دقال كان ودقال حق محايل النف هي مال iyo maxaan ku raahdaa dal iyo dad baa lagu difaacay waynu ognahay nimankan 10 sano ay dadkaas naftooda dilayeen ciday doonaan xoolahooda dhacayeen maxaan dhibaatooyin farabad amnigii ay kharibeen
waddan in laga qaxo ay sabab u noqdeen dagaal xaqa weeye waaye maanta aniga ii fadwoonayo sheekhay ahaa walaa waa jihaadi kartaa iyo maalintaas horta keebuu khaldan iyo keebuu sheekhay waxaan weydiinayaa kuwa mudaharaadaya khawaarijta Facebook ka mudaharaadaysa ba waxaan weydiinayaa ninkaani shalay iyo maanta keebuu saxan shalay anigu lahaa mujaahid baa tahay soonka laguma laha gal dagaalka afur buu ilahaaye maanta maxaa bedelay waa loo soo hanjabay sooma ayagaa u soo hanjabay khawaarijtu waa labo waa saddex wey mid mabda ku gala mid lacag ku gala iyo mid baqdin ku gala wey khawaarijtu saddexdaas wey sida dadka khawaarijta saddexdaa atam wey mid mabda buu ku yahay oo waa kii abuuray falsafada leh mid lacag baa la siiyaa oo dhuuntaas ka hayso waa imaan low midna baqdin fulay ah loo soo dhaarto oo kale baa ka haysa waa sida ninkan oo kale baqdin baa hadda laga shaqaysanaya oo waxa la lagu dilayaa haddaadan fadwoon oo aadan dhiigayaga iyo naftayada iyo maalkayaga inta firxadka badbaadi baadi oo maxaa tiraahdaa waxaa tiraahdaa ciidanka kii dila waa gaal dheh si ciidanku dagaalka ilaa askarigu waa nin muslima si dagaalka uga istaago waxaa tiraahdaa ninkaa dila waa gaal intaas waa kala shiriib waxaan qoraal baan qoray intaanu buuraha almiskaad intaana aadin waxaa la reebay inaan waddankan sifayno oo yaan ka sifaynaa khawaarijta midka fulinimada ku raaca khawaarijta midka lacagta ku raaca khawaarijta midka mabda'a ku raaca inaan gudaha ka sifayno oo naftiisa iyo maalkiisa iyo masabkiisa iyo dumarkiisaba qanimaysano taas xaq u lah haddaanan leeyahay dadka Soomaaliyeed weliba reer Puntland mid baan leeyahay ka digtoonaada waxa culimada sheeganay ina muuminka maanta naftayadii iyo maalkayagii iyo masabkayagii ku soo duulay ee Suuriyaanka iyo Marookiyaanka iyo Egyptiyaanka keenay in hebel buu la sheeganaya waan ma jirtaan oo aniga masbi la wadaaga sheekh buu sheeganay oo sheekh Cabduqaadir Muumin baa lahaa maantana wuxuuna dhaxalsiiyay waad aragteen dadka noocaasa way waxa sheekha ka dhiganaysaan oo sheekhu sheeganaysaan sheekhna maaha waa dayuus diinta islaam ka ganacsada ninka hadda halkaan ka sheegay ee aan lahaa khawaarij way haddaan leeyahay adeerayaalow dhiigayaga mujaahidiintii ku dhintay almiskaad raggii saraakiisha ay saaxiibaday ahaa aniga dhiigayga ayuu ahaa igaga daatay meesha adeerayaal ma aha mid aan uga gabanayo wajigan oo qarsanayo tuug dhalay khawaarija dhiiga ka ganacsada masabka ummadda ka ganacsada lacag ku raadiya baqdin dadkiisa ku laaya dadkiisa shay'a ogalkaala ma aha mid aan indhaha kaga qarsanaya ma midka almiskaad jooga iyo midka halkan ka taakulayaba waa asukay mid dhiigaygu ma aha mid xaraan dhulku dhacay oo dhiig xalaal oo dhulku dhacay dhiigana waxaan dhulka ugu daadinay dhiigaygu daadanay inaan dalkayga dadkayga iyo masabkayga aan difaacdo inaan gabdhahaygu nabad iyo nolol ku xaragoodaan way in aan waxa weeye Puntland baqdin looga seexan way ninka maanta leh ninka dilaya ee meenadu ku xiran tahay ee isqarxinaya ileh waa muslim oo lama dili kara ninka ileh ujeedkiisu muxuu yahay su'aal baan weydiiyay ujeedka ninkaasi muxuu ujeedkaasi waxa weeye in askarigaasi boqo la yiraahdo ilaahay ka baq ninkaas hadii alla ku rooyahay hadilin ee muslim weeye ninkaasi ciidanku ka soo laabtaan meesha laakiin kuwa sida ku laabanaya manihin kuwa khawaariji diin noo sheegaysana ma kuwa khawaariji diin noo sheegayso ma culummo haday noqoto culummo waa leen sheekh qorane iyo rag laba anaga culummo noo ah diintana noo hayo ogana dambayna culumadan anagu ku dabafaylna waxa weeye kuwa aan mabda'ooda gadan weeye kuwa aan isku rogan weeye kuwa maalin meel aan ka qadan weeye kuwa maalinna ayagoo hebel waa gaal leh maalinna muslim leh aan la arag weeye kuwa halka qadiyad la weeye kuwa qadiyadoodu tahay diinta islaamka weeye kuwaas anaga culumadayada laakiin qof isoo bedelay oo 10 shaati leh oo mar khawaarijtu lacag ku adeegsanayso mar khawaarijtu ku adeegsanayso deel ku reeyahay ee ku adeegsanayso muxuu ahaa baqdin ku adeegsanayso mar khawaarijta mabda ku ah kaasi anaga nooma aha sheekh nooma dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland ka digtoonaada yaan shaati culumadeed ku soo bahalkaysan yaan shaati waxaan arkay Facebook laga mudaharaadaya culumaad lacay ayuubaan haano
anigu qofka aan isha saarayo cidna ogama heebaysto taydaan socda tuug dhalay weeye ninkii shalay i yidhi soon laguma lehee dagaaltan maantana i yidhi ninkaad la dagaalamaysid waa muslime ka joog goormu ogaad shalay markuu lahaa afur ninku macnaha ma ogeyn miyaanu maanta ogaad inuu muslim yahay maanta markii lasoo wacay oo lagu yidhi haddaadan ka laaban oo la odhan nabadbaadi buu maanta aniga ii fadwoonaya aniga sheikh ima tihid haddaan leeyahay xaq waxaan u leeyahay calmiskaad kuwaan ku cayrsanayo sidaasoo kale adiga kugu cayrsada xaq u leedahay reer puntland waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta ilgooniya ku fiiriya hooyooyinka soomaaliyeed hooyooyinka reer puntland ciidamada qalabka sida mujaahidiinta ah dhiigoodu daadanayo maaha dhiigoodu ciyaar maaha gabadha habeen iyo maalin ciidanka daba taagan ee burka u dubaysa dhididkeeda dhiiggeedu ciyaar maaha wiilka habeen iyo maalin inta u dhaxaysa boosaaso iyo inta u dhaxaysa meesha la yiraahdo miiraale wiilka saa u teedsan oo jabooynta kasa taagan ee adeer gacal iyo dhiiggiisu daadanayo ee dhaxanta ku dhacayso dhiiggiisu ma aha mid aan uga haybaysanayo tuug dhalay af qurmuun timir jeebka uga jidho dhiigga ka ganacsada ma aha mid aan uga gabanayo kumana raali gelinayo oo ilaahay ka sarreeya fartaan kugu fiiqayaa waxaa tahay khawaarij dhiigga iyagu ma aha mid adiyaal ku roon yahay laga ganacsada ma aha runtaan kuu sheegaynaa haddii cidi gaal tahay adaa gaala kuwa aan la dagaalamayno waa gaalo dhulkayagay kusoo duuleen dalkayagay kusoo duuleen diintayadii bay kusoo duuleen naftayadii bay kusoo duuleen caruurtayadii bay kusoo duuleen gabdhahayagay kusoo duuleen ma annagaa anagu ciraaq joogna war ma annagaa anagu suuriya joogna war ma annagaa maroko joogna sidee anagu ninkii nagu soo duulay haddaan iska celino noo dhihi karaa muslim weeye ninkaa dili lii dhihi karaa xaggee jooga anagu war calmiskaad yaa leh ma marokiyaan baa leh war dhaadaar yaa leh war shabaab yaa leh war turmasaala yaa leh war anagu xaggee joognaa war ma marokan jooga anagu war ma suuriyaan jooga war hadduu muslim yahay mu aado meesha jihaad ku jira gurigiisa mu quraysto muslim maaha gaal weeye ilaahay islaam ka furtay dhiiggayga xalaalsaday aniga dhiiggayga ninka xalaalsaday dhiiggiisu waa xalaal dhiiggayga ninka xalaalsaday dhiiggiisu waa xalaal sheekh aan weydiinayo oo wahaabi ah ma jirto ummadda soomaaliyeed ka digtoonaada dhagarta wahaabiyiinta ka digtoonaada aad baan idin salaamayaa mudaharaadku ha socdo dadka reer puntland ee xalaasha ana indhihiina wax ku arka kuwa mudaharaadayana gacan gooniya ku qabta waan idin salaamayaa guul baan u rajaynayaa shacabka reer puntland guul baan u rajaynayaa ciidamada puntland geedkay galaanba gooya gurigay galaanba guba wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ilaahay hana guuleeyo wabillahi towfiiq